shirkad diyaaradeed oo Hindiya laga leeyahay ayaa ballan qaaday in uu bilaash ku raaci doono diyaaradeeda inta uu nool yahay wiilkan ku dhashay diyaaradaasi. cunuga ayaa ku dhashay diyaarad ay leedahay shirkadda Jet Airways oo ka soo duushay Sacuudi Carabiya kuna sii jeeday dalkaasi Hindiya. shaqaalaha diyaaradda iyo qof rakaab ah oo leh tababar kalkaaliso caafimaad ayaa caawiyay oo ka dhaliyay haweeneyda oo qabatay fool waqtigeedii ka soo hormartay. marka ay haweeneydaasi dhashay waxay diyaaraddu dhulka ka sareysay 10686 mitir. hooyada iyo cunuga ayaa isbitaal la geeyay kadib markii ay diyaaradda ay degtay magaalada Bombay ee dalkaasi Hindiya. shirkadda diyaaradaha ayaa warbaahinta u sheegtay in wiilka iyo hooyadii ay caafimaad qabaan waqti xaadirkan. shirkadda ayaa shaqaalaha iyo kalkaalisada caafimaadka uga mahadcelisay sida wanaagsan ee ay ugu guuleysteen in ay u kala badbaadiyaan haweeneyda iyo cunugeeda ay dhashay.